soo kordhinta fikrado iyo taba caafimaad oo cusub waa kuwa u baahan hal abuur iyo dhiiranaan. Somali Health Card Center oo ah xarun caafimaad oo ku cusub dalka ayaa laga daahfuray magaalada Muqdisho. Haddaba waa maxay fikradda ka dambaysa asaaska xaruntan iyo adeegyo caafimaad oo noocee ah ayay bixin doontaa? ka waran haddii aydiyada lagu keeno aad hal dhaqtar hal hospital aad ku helayso adeegyo discount ah, adeegyo free ah iyo adeegyo aad adiga lagu jaaj gareenayo. ka waran haddii aydiyo noocaas haddana aad heshid boqolkiiba 70 bulshada Soomaaliyeed haddana way soo dhaweeyeen waxayna dhaheen ma jiri doonto baahi qaas ah aan ugu tagi doono anagoo aan helnay adeegyo discount ah, adeegyo free ah iyo adeegyo la jaaj gareenayo. saas la ajligeed waxaan ku dhawaaqnay xarunta Somali Health Card Center inay noqoto xarun jirto oo shaqeyso ayadoo u abuureyso nidaam saxan oo HIMS ah. waxaa qaybo ka mid ah bulshada Soomaaliyeed caqabadi ka haysata helitaanka adeegyada caafimaad. hase ahaatee waxaa ka sii badan inta ay dhibaatooyin kala duwan ka soo gaaraan adeegyo caafimaad oo aan lahayn sal fadhiya. aniga waxay u dhacday markaa yaraa familkayga Allah qeyrsiye hal isbitaal aan joogteen jirnay oo takuulo ilaa u naxariistay marka Nairobi aadna dhacday markii dhacday isla markii aan tagnayba waxa dhacday isbitaal malaria ay ku dhacday isbitaal leeyahay cunug yar isla markii anaga hooyo markii horeeto hal dhakhtar lahaa halkii dhakhtar wuu la socdo waxay dhibaay wax kaleeto oo macnaha allergieskayga waxay gooran isla markii daawa la sii allergy qaaday taa hada macnaha hal dhakhtar haysatid oo familkaaga iyo cudurka adiga ku haayay iyo kula socdo historygaaga oo dhan way fududaanay in la helo macnaha lagu la socdo markasto xaaladda caafimaad. bulshooyinka caalamka ee ku nool wadamada horumaray waa kuwo hela adeegyo caafimaad oo joogto ah iyo daryeel dheeri ah. arrinkaas oo ah mid aan intiisa badan ka jirin dalkeena. haddaba adeega caafimaad ee xaruntu soo kordhisay muxuu uga dhigan yahay bulshada Soomaaliyeed? ma jiro qof isku halayn kara lacagta uu qaato mushaar ahaan uu qaato si uu caafimaadkiisa u dabaro. qoyskiisa xanuun ku yimid ama isaga shakhsiyadiisa waxa laga yaabaa in loo baahdo lacag $10,000 oo ay tahay qaliin ama procedure uu marayo. waxa laga yaabaa qofku inuu chronic diseases qabo ama waalidkiisa uu qabo oo uu ka bixin karin jeebkiisa. marka wadanka oo bilow ah iyo insurance cards-ka oo aan maaragtay u samaysnayn sidii loogu talagalay kaarkani markii si loo fiiriyo waa insurance yar oo qofka uu u helayo adeeg muhiim ah muddada uu maaragtay kaarka haysto. ugu dambayn madasha oo ahayd mid ay ka soo qayb galeen mas'uuliyiin kala duwan oo ka kala socday dawladda federaalka Soomaaliya iyo xarumaha caafimaad ee dalka ka jira ayaa bogaadiyay hal abuurka kuna tilmaamay tilaabo hore loo qaaday. waxaan qaadan laahay waxa aan caawa halkan ku arko waa qaadan laahay in institution health care ah gabdho yar oo wax bartay oo dhaqaale ahaan xitaa aan aadan islahayn capable bay u yihiin ay tan oo kala samayn karaan waxyaabaha maskaxdayda ku weyn oo aan la yaabanahay ka mid tahay. alxamdulillah ma sha Allah. ka jaamacad ahaan waxaan aad u bogaadinaynaa soo dhaweynaynaa adeegan kaarka caafimaadka Soomaaliyeed. insha Allah waxaan qayb ka noqon doonaa ka maamul ahaan iyo ka jaamacad ahaan ardayda dhammaan iyo macallimiinta insha Allah inaan noqono jaamacadii ugu horeysay ee adeegan ka faa'iideysatay insha Allah.